بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم و 2017 exam questions waxaanu bilaabaynaa marka qaybtii labaad insha Allah taala su'aalaha qaybtii labaad part 2 bayn marka oranaynaa okay su'aasha koobaad waa structured questions ka marka waynu qaybsan doonaa isaga laftirkiisa marka qaybtiisa koobaad qaybta labaad su'aasha koobaad waxa lagu define acceleration and give its units. Acceleration is rate of change of velocity. Rate way marka haddaad doonto su'aalahan noocan oo kale waxaa la yidhahdaa subjective questions oo jawaabuhu siyaabo ay u yar kala duwanaan karaan. Halka imika aan ka idhi acceleration waa rate of change of velocity waxaad oran kartaa acceleration is a change of velocity per unit time. Acceleration is change of speed per unit time. siyaabo badan oo kale oo sax ah ayaa jiri kara laakiin waxyaaba aan isbedeleen waxa kamid ah unitka oo ah meter per second square saasaad u qori kartaa ama waxaad u qori kartaa meter per second square yani su'aalaha subjective ka siyaabo kala duwan baa loo qori karaa su'aasha bida waxa uu a car increases its speed from 10 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration of the car. Acceleration baa lanaga doonayaa waxaan leenahay acceleration waxaa lagu helaa v minus u divided by t. Final velocity oo ah 30 meter per second minus initial velocity oo ah 10 meter per second by time-ka oo ah 5 second markaad kala jarto waa 20 meter per second divided by 5 second. Acceleration-kii markaad 25 u qaybso wuxuu ku soo baxayaa 4 meter per second square. Waay su'aasha ku xigta waxaa laga doonayaa distance traveled. Haddaba su'aashan distance-ka marka lanaga doonayo siyaabo dhowr ah ayaynu soo saari karnaa haddaan gifanka oo keliya halkaa ku qorto matalan gifanka waxyaabaha aan haysto oo dhan haddaan halkaa ku qorto dee waxaan haystay initial velocity iyo final velocity macnaha u oo ahaa 10 meter per second iyo v oo ii ahayd 30 meter per second wax kaloon haysanay time oo inoo ahayd 5 second waxay noo soo baxay acceleration oo isaguna inoo ah 4 meter per second square. Marka hadaba distance baa lanaga doonaya intaana halkan ku qorin waxaan rabaa inaad ogaataan inta qaacido ee possible-ka ah ee aan adeegsan karo. Waxaan adeegsan karaa qaacidada odhanaysa distance-ka waxaa lagu helaa u plus v divided by 2 times t. Horta waan isticmaali karaa yani waa average velocity-ga intan dhexda waa average velocity-ga ama average speed-ka oo lagu dhuftay time-ka. Marka u plus v markaan leenahay dee u waa la aragnaayo waa 10 v na waa 30 markaad isu geyso labadoodaas waa isku 40 labana aad u qaybiso oo aad ku dhufato time-kiyo maxaya 5 40 laba u qayb waa 20 na haddaad 5 ku dhufato waa 100. Horta distance-kaagu 100 buu soo baxaya. waxaa kaloo adeegsan kartaa qaacidada odhanaysa distance-ka waxaa lagu helaa ut plus half at square. haddaad isticmaashayna waa same oo dee u-daadii waa 10 time-kaagina waa 5 plus 1 divided by 2 aadiyo 4 iyo time-kiyo ah 5 na square gare waa 25. marka labadan isku dhufo waa 50 plus labadan isku jar waa 2 labana 25 ku dhufo waa 50 ugee waa 100. same answer. soo markiis 100 bay ku soo baxday. waxaad isticmaali kartaa oo kale qaacidada odhanaysa distance waxaa lagu helaa v square minus u square divided by 2a. taasoo iyadna ku noqonaysa final velocity-ga haddaad square to macnaha waa 30 square waa 30 times 30 oo waa 900 oo laga jaray u square oo waa 10 square oo waa 10 times 10 oo waa 100 oo loo qaybiyey 2 times a macnaha waa 2 times acceleration-kiyo 4. marka labada haddaad kala jarto waa 800 markaad u qaybiso 2 4 ku dhufo waa 8 halkan waxa kaaga soo baxaya 100. same. waxaan halka ka dareemanaa waxa soo qaacida kaan doonaan isticmaali karnaa aniga waxa ila fudud ugu horeysa oo odhanaysa displacement ama distance-ka waxaa lagu helaa
average velocity-ga macnaha u plus v divided by 2 oo lagu dhuftay hee time-ka. marka markaynu ku bedelo u-deennina waxa weeye 10, v-deennina waa 30, labana waa loo qaybinayaa, si guudna waxaa loogu dhufanayaa hee time-kii oo ah maxay 5. labadaa markaynu isu geysanay waxa weeye waa 40 loo qaybiyey 2 oo lagu dhuftay hee 5. 40 2 markaad u qaybiso waa 20 lagu dhuftay 5. sidaa waxaa inoogu soo baxaya 100 mitir. saas markaa distance-keenina wuu inoo noqonayaa. su-aasha b-da waxaa lagu yidhi average velocity-ga raadi. marka average velocity laba siyaabood baa lagu helaa. average velocity-ga ama v average mar waxaa la yidhaha waa total distance-ka oo loo qaybiyey total time. total distance-keena hadduu inoo soo baxay 100, total time-keena waa 5, dee markaan isu qaybino waxaa inoo soo baxaya waa 20 meter per second. or waxaad odhan kartaa average velocity haddaad maqasho waxaad odhan kartaa u plus v divided by 2 waad odhan kartaa. u plus v u-deena waa tii 10 ahayd, v-deena waa tii ahayd 30, laba loo qaybiyey marka waa 40, laba loo qaybiyey iyadna tii dhun bay ku siinaysaa. marka waa isku mid average velocity labada taa doonto waad adeegsan kartaa. wuxuu waa subjective questions. tana marka kaaga simbalsan adoon isba hawlin. average velocity-gaagu waa total distance-ka oo loo qaybiyey total time. total distance-kaagii waa 100, total time-kaagina waa 5, markaad isu qaybiso waa 20 meter per second. su-aasha labaad waxaa lagu yidhi the figure shows the forces acting on a car of mass 800 kilogram. the motive force from the engine is 2000 newton and the drag force at this instant is 3200 newton. shaxankan wuxuu inoo muujinayaa forceska ku dhacaya ama ku kulansan gaadhiga. maaskiisu waa 800 kilogram. ku xisaabtan hayloobin marka maaskii waxyaabaha lagu siiyo. motive force from the engine xooga gaadhiga wada ama motionka siinaya ee mashiinku waa 2000 newton. drag force-ka ama air resistance-ka yani caabiga dib u celinayana waa 3200 newton. explain why the car is decelerating. sharaxaad ka bixi sababta gaadhigu deceleration-ka uu sameynayo. dee iska caddahay waxa weeyaan gaadhiga xoogii hore wadina waa 2000 newton. air resistance-kina waa ama dee caabigii dib u celinayana waa 3200 newton. marka resistive force-ka ama caabiga ayaa ka badan xooga hore u wadaya. drag force is more than the motive force. drag force-ka waa xooga dib u wadaya. resistive force-ka ama caabiga ayaa ka badan motive force-ka xooga gaadhiga wada. marka dee deceleration buu gelaya gaadhigii. su-aasha labaad work out the net force acting on the car. net force baa laynaga doonayaa. net force-ku waa force-ka hore u wada oo ah 2000 newton ayaa laga jarayaa resistive force-ka ama drag force-ka waa 3200 newton. waxaynu halkaa ka arkaynaa marka waxaa inoo soo baxaya minus 1200 oo newton. halka waxaa layna yidhi work out deceleration of the car. deceleration-ku waa acceleration. qaacida acceleration waa isticmaalasa ay ahayd v minus u divided by t. acceleration-ka marka aanad haysan velocity iyo waxyaaba noocaasi ah dee waxaa lagu helaa net force-ka oo loo qaybiyey mass-ka. hadda net force-kii waxay inoo soo baxday minus 1200 oo loo qaybiyey mass-kii oo inoo ah maxay 800. waa tan laynagu siiyey halkan loo qaybiyey hee 800. labada eber isku jar yaryaree oo dee 12ka iyo si isugu ka qaybsanto 8. tana 2 u qaybi waa 6, tana 2 u qaybi waa 4, 2 u qaybi waa 3, 2 u qaybi waa 2, 1.5. ugu dambeyn waxaa kusoo baxaya minus 1.5 meter per second square. acceleration-kii maxaa ku garanaya inuu yahay deceleration? waxaan ku garanaa calaamadda minuska because minus buu wataa marka waa deceleration. okay, waa iyaduna waxa lagu yidhi what would happen to the motion of the car. maxaa ku dhici lahaa socodka gaadhiga if the force from the engine balances the total drag force. haddii xooga mashiinku maanta dee waxa weeyaan waxaynu aragnaa gaadhiga xooga mashiinkuna waa 2000, kii kalena waa 3200 ee drag force-ki 3200. hadday labadan isla egaadaan balance macnaha haddii is dheeli tiraan labada force maxaa ku dhici lahaa
socodka gaari. What would happen to the motion of the car? maxaa socodka gaariga ku dhici lahaa? gaariga meesha waxaa ka bixi lahaa accelerationka 1 2 gaarigu wuxuu ku socon lahaa constant velocity. hadda inaga socod ku balayna weydiiyey it would move with constant velocity waxa uu ku dhaqaaqi lahaa xawaare constant. marka haddaad ku darto tiraahdo accelerationkuna 0 uu noqonayaa oo iska macaanays waayo lagumaba weydiinba hadda. bal maanta qaybtaa intaasaynu ku daynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.